السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو shalay tole magaalada Berlin waxaa ka dhacay shil gaari oo dhexmaray baabuurkaasi taksiga idin muuqdo iyo baabuurkan kale minibuska oo ay leeyihiin booliisayga magaalada Berlin. Wuxuuna ka dhacay isgoyska Wilhelmsburg Straße ee magaaladaasi Berlin. Booliiska ayaa la sheegay inay ku saarnaayeen baabuurkooda oo minibus ah 7 ruux iyo ninkan taksiilaha ah. sida hadda sawirka ka muuqato waxa u maleysaa in booliska uu ku dhacay baabuurka taksiga maadaama baabuurka booliska uu futagadoomay. ilaa hadda lama yaqaano in booliska ay ku jireen howlgal ama ay u socdeen oo u daarnaa codkan Martins Honka ama Blaulichtiga. laakiin waxaa la sheegaa in meesha dhaawac uu kasoo gaaray 7 booliska ah baabuurka minibuska ay saarnaayeen iyo ninka taksiilaha ba asigana dhaawac inuu soo gaaray. laakiin dhaawacooda uusan ahayn dhaawac zaid u daran oo naftooda khatar gelin kara. adiga marka aad joogtid magaalooyinka waaweyn Berlin, Hamburg, München, Nuremberg, okay, magaalooyinka waaweyn marka aad joogtid isgoosiyada badanaaba iska ilaali. isgoosiyada waa meelaha ugu badan uu ka dhaco shilka, khaasatan weli isgoosku waxa ugu daran marka uusan lahayn ambelka, okay, uu yahay rechts vor links. marka aniga badanaa gaariga waa ka cabsadaa laakiin laga maarmaan ma ahano inaa wad waa ku qasban tahay. marka ilaaha nagu xifdiyo. aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.